بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركله isku soo noqod wanaagsan waqti dheer aan kala maqneen kadib waxaan filayaa waxa ka imaatay dhankaasi TikTok aniga ayaa halkan kugu balamiyay maanta muuqaalkan waxaan kugu bari doonaa in aad ka hortag sameyso inta aan laga jabsanin Facebook-gaaga ka hor hadii laga jabsanin qaabkee dib ugu soo ceshan doontaa inta aan mowduuceena ku dagalin waxa muhiim ah in aad ogaatid mowduuca aan ka hadlayno maanta waxa uu yahay waa trusted contacts muxuu yahay trusted contacts waxa uu yahay 5 qofood ama 4 qofood ama 3 qofood oo asxaabtaada Facebook ka mid ah ayaad gashanaysaa trusted contacts kaasi oo hadhow ka caawin doono in aad Facebook-gaaga aad dib u heshid ama aad dib u soo ceshatid xataa hadii aad Facebook ku gali jirtay macnaha email kaasina ma taqaan uu ka dhumo xataa aad ahaantaada ka dhumo marka inta oosan muhiimada waa ina isku fahanaa hadda hadii uu ka maqan yahay Facebook-gaaga oo hore aadan u sameysanin trusted contacts-ka hadda hore u sameysanin waqti xaadirkan waxba kuma qabanayo hadii uu Facebook-gaaga ka maqan yahay laakiin maanta laga bilaabo hadii aad is-register ama aad register trusted contacts-ka hadhow dib u heli kartaa hadii uu Facebook-ga email kugu xiran ka dhumo ama hadii oo macna laga jabsado oo qofkii ka jabsadana oo email kale ku xirto password kale u sameysto intaas ayuu mowduuceen ku saabsan yahay hadii aad ku qanacday isoo raac dhanka computerka waa tahay marka koowaad waxaan soo kicinaynaa Chrome-ka si aan Facebook-ga u soo kicino sawjadiin waa kana Chrome-ka waxyaabaha aan mar walba isticmaal ayuu kamid yahay Facebook-ga iyo Bible-ka okay iyo dhammaan waxyaabaha meeshan ka kacsan sawjadiin kadib Facebook ayaan ku dhufanayaa wuxuu weydiin doonaa in aan mataqaana soo geliyo ama aan login aan dhaho waxyar ayuu is adkeenayaa sawjadiin waxaan gudaha u soo galay Facebook-gayga iyo toos ii keenay maadaama uu computerka u yahay computerka mar walba aniga aan isticmaalo si aad mataqaana trusted contacts-ka askaga register ama aad ku xiratid marka kood waxaad tagaysaa meeshan kadibna waxaad tagaysaa meeshan ku qoran tahay setting ama hadii aad haysatid maxaa ii sheeg telefoonka ugu jirtid iyo hadii aad Chrome isticmaalaysid labadaba waa isku mid markood waxaad tagaynaa setting and privacy kadibna setting ayaan kasii dooranaya kadib wuxuu keeni doonaa meeshan ayuu keeni doonaa kadibna ani qaybtan uma baahni waxa u baahanahay dhankan bidix ayaa mataqaanay anfacayso kadibna waxa ka dooraneynaa meeshan ay ku qoran tahay security and login inta dhexe ama qaybta dhexe ayuu wuxuu keeni doonaa information aad u fara badan iyo qaabkii aad mataqaana aad u adkeyn lahayd Facebook-gaaga iyo in laga jabsado iyo in kaleeto qaybta koowaad kulli oo ujeedin macnaha recommended waaye wuxuu leeyahay dooro macnaha ishig important security setting iyo waxyaabahaas door ayuu leeyahay qaybta ku xigtana wuxuu leeyahay meelaha looga jiro in computer active ka ah waqti xaadirkan telephone mataqaana iPhone oo 13 Pro Max ah ina ugu jiro wadanka aad joogo iyo mataqaana waxyaabahaas oo ku sheegaya hadii aan si furo meeshan waxa arkaya telefoonka kale ku jiro ama device-yada kale loogu jiro macnaha da Seymour aan dhaho hadda kulli kana wuxuu kale Samsung ayaa loogu jiraa waxa kale loogu jiraa Samsung kale ayaa loogu jiraa dhammaan waxyaabaha meesha ku qoran oo dhan waa macnaha ishig aniga ayaa mataqaana ka galay meesha aan ka shaqeeyo waaye location kan oo macnaha oo qaybta ugu dambayso oo right ay ku qoran tahay beerna mataqaana ishig marab wuxuu soo qoraa wadanka caasimadiisa maadaama wadanka oo zaid uu soo weyneen caasimadu ku soo qabanaa marlaad wuxuu ku soo markalna wuxuu ku soo qabanaa Zurich magaalooyinkaas login ku soo hara marka change password-kaaga save mataqaana ishig your login info macna save gray waxyaabaha soo mataqaana qaybtan kaleeto marka qaybta ugu muhiimsan waa kara oo ah ayadana waxa two factor authentication ama in macna telefonkaaga hadii qof kale oo soo gala ama qof kale isku dayo soo galo in oo soo forta ama si dhaqso leh oo ku soo ogeysiyo si aad macnaha ugu hortagtid marka intan waxa uu ahay trusted login ayadana waa qaybtan oo kale la mid tahay oo ah in mataqaan lagu xaqiijiyo marka aad soo galaysid qaybta kale marka oo ugu sii muhiimsan oo aan rabo maanta waxay tahay qaybtan weeyaan ama qaybtan waa qaybtan iska daa qaybta koreto qaybta kale oo ah choose 3 to 5 friends ومعناها trusted contact
macnaha dad oo macnaha aad ku kalsoon tahay adiga 3 ilaa iyo mataqaana 5 qofood oo asxaabtaada oo macnaha Facebook ka mid ah oo midkood waa in magaciisa saddexan aad garan kartid markii wax ka halaabaan. Okay, edit ayaan leeyahay aniga سأوجدين waxa igu jiro ciwaanka koowaad waxa waa hooyaday waaye ciwaanka labaadna waxa waaye walaalkay iska leh oo magaca oo shalay markaan qoray markii laga jabsaday qofkii aan ku badbaado wuxuu ahaa walaalkay Facebookiisa maadaama aan aqaanay asiga magaciisa saddexna ku qoray labadana kulay igama fogo waa laba qofood oo walaalahayga ah ama saaxiibadeyda ah igu dhaw labadoodana waa IT macna ishig professional waaye oo labadoodaba ninkaan guitar laha ninkaan Ahmed Shaax ama Ahmed Sharaf ayaa laha ninka soo yaqaano. Okay, magacyadooda idinka qari raali noqda. marka meeshaas ayaa waxa soo gashanaysa 5 qofood ilaa 3 qofood oo aad taqaan mar walba waxa wanaagsan 5 qofood inay kugu jirto 2 qofood contactooda waa wayn kartaa laakiin 3 qofood ma wayn kartaa. Hadii qof aad ku macnaha ku tuhantid ama aad ku maqashid geeri inuu dhintay waa iska bedelaysaa mar walba inta ayaa mataqaana ka bedeli karaa in aan mataqaan remove all aadho in aan macnaha wax kale aan ka bedelo adiga dabcan hadii uu ever uu ku yahay mar walba isku day in 3 qofood oo macnaha ay sheeg ay kugu jiraan ugu yaraan 3 qofood ugu badnaana 5 qofood ayaa lagu ogol yahay in aad mataqaana ku keensatid. waxa filayaa programkan in uu zaid uu ku caawin doono xataa hadii hadda dadka is adkeynayo ay kamid tahay waa u baahan tahay birka maalin waa u baxsanaysaa oo ah qaabkii oo matqana oo lagu weydiinayo ama qaabka aad u gelinaysid dadkan waxyaabaha uga baahan tahayna dadkan meesha ku qoran ahda markin greenooyo waxyaabaha uga baahan tahay lacal hadii laga xirane hal muuqaal kale ayaa ka soo diyaarin doona oo ah hadii laga jabsado qaabka uu ekaanayo ama qaabka uu jiheysid iyo qaabka u soo ceshin kartid asina ku bari doona. waxa filayaa in dad farban ay ka faa'iideysan doona hadii aan ugu cusub tahay subscribe-ka ha iloobin asxaabtaada inaad u share geysin ha iloobin love-ka ama like-ga iyo mataqaana commentigana aad ayuu muhiim u yahay qaybta hoose. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.